Salebaan Axmed Ciise Kaar Xagle Toosiye wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka Somaliland iminka kama mid aha wasiirada cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi soo dhisay inkastoo haddana ay iska dhaxwaayeen xukuumadda uu soo dhisay Muuse Biixi wasiiro saameyn ku lahaa xukuumaddii ka horeysay ee Axmed Siilaanyo garwadeenka ka ahaa Xagle Toosiyena waxa uu qayb ka ahaa wasiiradii ku xididaystay dowladii Siilaanyo. Salebaan waxa uu hogaamin jiray dhaqdhaqaaqii jabhadda xoreynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee loo yaqiinay SSC muddo sanada ah uu ahaa hogaamiyaha SSC kadib ugu dambeyntii 2011 waxa uu ka degay Hargeysa saluug uga yimi shirweynihii Taleex ee lagu go'aamiyay in la dhiso maamul hoostaga dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaasina laga xoreeyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn maamulka Somaliland. Xagle Toosiye waxa uu ka biyadiiday maamulkii shirweynaha Taleex oo kalifay inuu Hargeysa saldhig ka dhigto. Madaxweyne Siilaanyo waxa uu arkayay markaasi guul u soo hoyatay Somaliland maadaama feer ka mid ah feerihii SSC ay wada heshiiyeen. Salebaan Ciise Axmed Kaar Xagle Toosiye waxaa loo magacaabay wasiirkii dibadejinta iyo horumarinta gobolada Bari waxaana noqday wasiirkii ugu horeeyay ee wasaaraddaasi lagu bilaabo balse saluug ka yimi dhanka Xagle Toosiye iyo quursi uu yareystay wasaaraddaasi ayaa loo wareejiyay wasiirkii caafimaadka Somaliland. Siilaanyo waxa uu ku caanbaxay bedelista iyo isku shaandhaynta golihiisa wasiirada oo mar walba kalifi jirtay in wasiir xilkiisa ku waayo ama booskiisa laga bedelo balse Xagle Toosiye waxa uu qayb ka ahaa wasiirada aan lagu faragelin shaqadooda. Xagle Toosiye waxa uu ka mid noqday wasiirada tiir-dhaxaadka uu noqday kulmiye waxaana qayb ka ahaa wasiiradii ka biyadiiday in Muuse Biixi Cabdi noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. Khilaafkii adkaa ee wasiirada faraha badan isku casileen isla markaasina xilalkooda ku tiriyeen walow uusan Salebaan iska casilin xilkiisa haddana la mowqif ayuu ahaa wasiiradaasi. Xagle Toosiye waxa uu tartamay murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye xilligaasi waxa uu aaminsanaa inuu yahay shaqsiga kaliya ee uu qalmo xilka madaxweyne ku-xigeen ee kulmiye waxaana kula loolamayay madaxweyne ku-xigeenka imika Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. Doorashadii ayaa la galay gabagabadiina Xagle Toosiye waxa uu qaadacsanaa qaab doorashada loo maamulay isaga oo ka biyadiidsanaa ayuu ka codsaday madaxweyne Siilaanyo in la bedelo qaab doorashada madaxweyne ku-xigeen maadaama dahar fara badan saarnaa. Xagle Toosiye waxaa laga dhaxwaayay hal mar kaliya ololihii kulmiye xilligii baratanka axsaabtu uu ka socday dalka balse fagaaraha Laascanood ayaa lagu arkay hal mar kaliya oo kaliftay rajo badan in dib u soo gasho boqolaadada oo aaminsanaa in Xagle Toosiye uu ka degi doono doonta kulmiye mar hadduu soo baxo Muuse Biixi Cabdi. kulmiye ayaa guuleystay Muuse Biixina waa uu soo baxay golihii wasiiradana waa la magacaabay balse Salebaan Axmed Ciise Kaar Xagle Toosiye qayb kama ahayn golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi soo dhisay maadaama Xagle iyo Muuse ay ka dhaxeeyaan dagaal dhanka siyaasadda ah balse maalmihii u dambeeyay waxaa si xoogan u soo shacbaxday in dagaalka Muuse iyo Xagle Toosiye uu yahay mid qaawan. laba gaari uu lahaa iyo xaaskiisa ayaa lagu xidhay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wasiir Salebaan Axmed Ciise Kaar Xagle Toosiye waxayna tusaale u tahay dagaalka u dhaxeeya Xagle iyo Muuse inuu hawada isku shareeray. Xagle Toosiye oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa sheegay in Muusaha cusub uu ka dambeeyo xadhigga eheladiisa iyo gawaadhidiisa saameyn baaxad ayuu ku leeyahay deegaanadiisa iyo waliba Somaliland oo dhan. Salebaan Axmed Ciise Kaar Xagle Toosiye waxayna kalifi kartaa fogaanshaha arrimaha gobolada Bari. Xamse Raadeeye, RTN, Laascanood.